dhalinyarada Soomaalida ay wax ka barta jaamacadaha waaweyn ee ku yaala gobolka Western Cape ee dalka South Africa ayaa waxay sameysteen xaflad ay ku soo bandhigayeen urur ay ku mideysan yihiin ardada wax ka barata dalka South Africa isla markaana ay maamul cusub ku doorteen. xafladan oo habeenkii xalay ahaa ka dhacday xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Bellville ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona halka khudbado kala duwan oo badnaa mahadcelin dardaaran isugu jira dhanka waxbarashada iyo midnimada ka jeediyay marti sharaftii kala duwan ay halka lagu casuumay. waxay ahayd waxaan dareemayaa macnaha nin tol la'aan ahaa oo tol helay ayaan ka dareemayaa kulankan asaga ah sababta aan leeyahay waxa weeyaan wax badan oo aan niyadeeda ku hayay in la helo urur arday oo sidaan oo kale ama arrimo kale oo bulshada marxaladda ay maraysa ka saara ay wax u qabta ayay macnaha waxay ururkan uu yahay bil cusub oo u dhalatay bahdi ama aqoonti ay Soomaalida u baahneed. waxaan rabaa inaan tilmaamo in aqoonta wax walba ha ahaato ama dhakhtar baro ama injineer baro ama diin baro ama cilmi kale baro in iimaan uu sal u noqdo aqoonteena. dhakhtar haddaad tahay inaad noqoto dhakhtar iimaan leh, injineer iimaan leh, macallin iimaan leh, cilmi kastoo aad barato sal inuu yahay mar haddaad muslim tahay iimaanku lagama maarmaan. diyaar u nahay anaga ku hadlaya magaca ururka Education League ardayda taageeri doona haddii alla idmo taageero wixii hore loo soo mara ka badan insha Allah taala inayna ma caabay doon insha Allah. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta anagoo gabdho Soomaaliyeed oo arday ah awal ma lahaan jirin inaan wax barano haddana Ilaahay wuxuu fursad noo siiyay anagoo ka kala imaanay anigoo ku nool waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town iyo gabdho kale oo ka imaaday magaalooyin kale ama wadamo kale oo kamid ah. gudoomiyaha cusub ee ardada Soomaalida ee gobolka Western Cape mudane Mahad Maxamed Cali Tokyo ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyay ka soo qaybgalayaashii xafladaasi waxaana uu xusay in ardada wax ka barata dalkani ay ku tiirsan yihiin dhaqaale iska soo ururiyeen ganacsatada isla markaana ay ku dabaraan ilaa 15 arday oo jaamacadaha iminka dhigta asaga oo ka codsaday intaasi ay wali dabooli karin baahida ardada balse u baahan yihiin in la garab istaago. kasoo qadalkiina aan soo qabshan caawiyo waqtigiina qaaliga noorteen waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan si niyad sami leh ugu mahadceliyo taakuleyntii ardayda Soomaaliyeed ee u geysatay labadii bilood oo soo dhaafay aadna ugu faa'iideysteen arday badan oo baahidooda aad u muuqatay Ilaahay ajri xasanad ka siiyay leeyahay. ururka ay ku mideysan yihiin ardada Soomaalida ee dalkan South Africa wax ka barta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay sii kordhayaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka South Africa oo iminka ayagu ku sii badanaya goobaha waxbarashada ee dalkani. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.